caasimadda xalay waxa ka dhacay rasaas dhowr xabadood oo rasaas ah oo ay rideen eedeysanayaal ciidanka Booliisku aqoonsaday qaar ka midana uu soo qabtay qaar ka midana uu ku daba jiray arrinta doorashada golaha deegaanka waa arrin u taala xubnaha golaha deegaanka ee sharcigu u fasaxayo in ay wax doortaan waanay doorteen arrintaasina waxa ay ku dhamaatay si nabadgelyo ah sidaa daraadeed cid kasta oo food saaro ka dhiganaysa waxaan sharcigu u banaynin ciidanka Booliisku wuxuu ka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 12 bishii shanaad 2026 waxaan ka hadli doonaa arrin khusaysa guud ahaan nabadgelyada dalka marka hore shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan la wadaagaynaa in guud ahaan dalku uu yahay nabadgelyo wax dhibaatooyin aanay jirin caasimadda xalay waxa ka dhacay rasaas dhowr xabadood oo rasaas ah oo ay rideen eedeysanayaal ciidanka Booliisku aqoonsaday qaar ka midana uu soo qabtay qaar ka midana uu ku daba jiraa arrintaasi waxa gacan fiican naga siiyay oo aan aad iyo aad uga mahad celinayna shacabweynaha reer Soomaaliland oo arrintaasi isku xilqaamay isku taxallujiyay sidii loo heli lahaa eedeysanayaashaasi xalay toole magaalada rasaasta ka riday arrinta doorashada golaha deegaanka waa arrin u taala xubnaha golaha deegaanka ee sharcigu u fasaxayo in ay wax doortaan waanay doorteen arrintaasina waxa ay ku dhamaatay si nabadgelyo ah ciidanka Booliiskuna waxa uu goobjoog ka ahaa ammaanka goobtaasi sidii loogu talagalay ayaana ku dhamaatay haddaba waxa jira dad arrintaasi food saaro ka dhiganaya oo ilaa hadda social media ka wada waxyaabo aan nabadgelyada ku wanaagsanayn dadkaasna ciidanka Booliisku si gaar ah ayay ula socdaan waxaan leeyahay waa arrin ku khariban in ay ka jawaabtaan sheekada golaha deegaanka oo aan u oolin cid shacaba ama qabiil aan u oolin sidaa daraadeed cid kasta oo food saaro ka dhiganaysa waxaan sharcigu u banaynin ciidanka Booliisku wuxuu ka qaadi doonaa talaabo sharciga waafaqsan 5 sano ka hor markii golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ay doorteen maayirka iyo maayir ku xigeenkan maanta xilka laga qaaday golaha deegaanku uu hambaliyay si wanaagsan ayaanay ula shaqeynayeen maantana waxaan rajaynaynaa in maayirka iyo maayir ku xigeenka cusub ee ay doorteen ay hambaliyeyn doonaan lana shaqeyn doonaan waana dhaqan gobonimo ah maalmaha fooday nagu soo haya waxa la gudagali doonaa xuska maalinta qaran ee 18 May oo ah sanad guuradii 35aad ee ka soo wareegtay maalintii aynu xornimadeena dib ula soo noqonay shacabweynaha reer Soomaaliland goob kasta iyo gobol kasta iyo meel kasta way ka dabaaldegayaan ciidanka Booliiskuna waxa uu socdaa baalahooda waanu ilaalinayaa haddaba shacabweynaha waxaanu ka codsanaynaa alla wax kasta oo ay garan waayaan iyo wax alla wax kasta oo ay ka shakiyaan iyo wax alla wax kasta oo ay u arkaan in nabadgelyada ay waxyeelayaan in ay ciidanka Booliiska soo gaarsiiyaan waayo ciidanka Booliiska iyo shacabka oo gacmaha is qabsada waxa lagu heli karaa nabadgelyo sugan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته